السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aynu idinku talagalnay maanta oo talaada ah. waa barnaamijkeeni labaad, waa barnaamijka aynu idinku soo aruurino macluumaadka wararkii ugu waaweyn ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. taariikhdu waa 28 bisha May sanadka 2024. qodobada barnaamijkan aan idinku hayo waxaa kamid ah Israa'iil oo xasuuq cusub ka geysatay Rafah kadib markii ay mar kale weerar ku qaaday dhinaca galbeed ee Rafah, iyadoo la sheegay dad fara badan halka in lagu dilay, kuwa kale oo raydana halka ay ku dhaawacmeen. haddaba tafaasiisha ku saabsan goobta la weeraray iyo sida ay wax u dhaceen barnaamijkan idinku haya. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa Al Jazeera oo ka diyaarisay warbixin la yaab leh habka ay wax isaga difaacaan ciidanka Israa'iil. haddaba saraakiil sare oo Mareykan ah ayaa waxay ku eedeeyeen cabsidii inay ka badatay Israa'iil ciidankeedii, kadibna ay iyaga soo ridayaan diyaaradihii daroonka ah ee ay u direen Gaza. haddaba sidee wax u dhaceen? sheeko qosol badan oo la yaab leh ayaan halkaa idinku soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinku hayaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa safar aan hore loo sii sheegin maanta ku tagay dhinaca xuduudda Lubnaan, iyadoo halkaa maalmihii la soo dhaafay ay duqeymo iyo weeraro isku weydaarsanayeen Israa'iil iyo Hezbollah. haddaba wararkaasi iyo wixii kale ee warar soo kordha inta aan barnaamijka ku jiro ayaan idinkula socodsiin doonaa. kula wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii labaad maanta oo talaada aan idiin soo gudbinayo, iyadoo barnaamijkan kii ka horeeyay haddii aadan daawan doonto macluumaad aad u xiiso badan. haddaba barnaamijkeena waxaan ku bilaabayaa iyadoo dhowr qodob ay noo soo socdaan oo muhiima. baarlamaanka Faransiiska ayaa maanta oo talaada laga cayriyay xildhibaan baarlamaanka ka tirsan waliba xisbiyada mucaaradka ah. waxaana la cayriyay muddo 15 maalmood ah inuusan fadhiyada baarlamaanka imaan karin. in baarlamaanku xildhibaanada haddii ay u dambiye sameeyaan ama wax qalad sameeyaan la ciqaabo, la ganaaxo, waa caadi. laakiin ninkan maxaa lagu ganaaxay? waxa la isweydiinayaa waxay tahay ninkan xildhibaanka ee Faransiiska ee baarlamaanka jooga maxaa lagu haystaa? warbaahintii Faransiiska way kala qaybsameen. xildhibaanadii qaar way qaylinayaan, waxay ku dhagan yihiin gudoonkii baarlamaanka. ninkan muxuu halleeyay marka? ninkan la cayriyay muxuu sameeyay? waa war cajiiba. aan markaa idin tuso wakaalada wararka ee Turkiga Anadolu ayaa waxay qortay, waxay leedahay waxaa laga cayriyay baarlamaanka fadhiyadiisa kadib markii uu calanka Falastiin kor u qaaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, waxaana la cayriyay muddo 15 maalmood ah. fiiri, ninka wax kale laguma qabsanayna lagu leeyahay. waxaa lagu haystaa iyadoo kulan baarlamaanka la fadhiyo ayuu calanka Falastiin la soo baxay. baarlamaanku saas ku dhex yiri calanka Falastiin. aan caawinno reer Gaza, dadka dhibaatada iyo dulmiga lagu hayana waayeen. intaas markii afkiisa ka soo baxday ayaa waxaa la yiri ninkii wuxuu sacab ka helay xildhibaanadii kale, way u sacbiyeen. waa mahadsantaa, waa sacabkii isqabsaday. nimankii guddoonka baarlamaanka way xanaaqeen. kadib guddigii anshaxa iyo wixii waa la isu tagay. ninkan waxaa la yiri wuxuu noo horseedaa albaabuu nagu furaa. meeshan haddii maaragtay Falastiin iyo wax laga yiraahdo haddii waana la qabsanaa yiraahdeen, waana la ku dhagaa. marka waa ninkan inaan hadda ka hortagnaa. marka waxaa la yiri ninkii waxaa la yiri waa lagu ganaaxay 15 maalmood fadhiyada baarlamaanka ma imaan kartid. liajli calankaasaa kor u qaaday dadka reer Gaza masaakiinta ah hala caawiyo
dhibaatada laga joojiyay aatiri darteed. marka warbaahintii markii hadalkii bulshada uu soo gaaray dadkii Faransiiska dee waa qayliyeen waa dad badan waa lagu ka meesh mugtahay dad badan oo dulmiga necba jira gaal ha ahaado muslim ha ahaado wuxuu rabaa xataa yahuud dulmiga necba jirta oo hadda mudaharaadyada Falastiin lagu taageeraa ka qayb gashay iyagoo koofiyadahoodii waxoodii wata oo meesha tagaayo le dulmigaas waa ka soo horjeednaa. marka sideedaba dulmiga dad badan nacab marka dadka dulmiga nacab waxay leeyihiin ninkan xildhibaanka dulmiga laga galay guddoonka baarlamaanka wuu ku qaldan yahay ninkan xalanka hadduu calanka Israa'iil uu taagi lahaa ma ayri lahaydeen meesha marka arrin badan marka meesha ka jirta adduunyadii oo dhan hadda waa la isla kacay hadda waa la yaabiyay. haddaba qodobkaas wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee barnaamijka aan idinkugu soo gudbiyay maanta. qodobka labaad ee barnaamijka aan idinkugu hayo waxay tahay ninkii Netanyahu ahaa socdaal dhuumasho ah ayuu galabta ku tagayaa la leeyahay dhinaca xuduudda Lubnaan. diyaarad helicopter ayuu qaatay meeshuu aaday. saraakiisha ciidanka ee aaga meesha ku sugan iyo wixii meesha la kulmay jaakadii xabadda aan karayn iyo wixiina waa qaatay. macnaha anigu nin dagaal baan ahay dadka Israa'iil waxaan u sheegayaa inaan halgamayo waa kaas maxaan meesha u imaaday uu yiri. sheekada meesha marka warkiisa wuxuu yiri dadkii halkan ka barakacay inay si nabadgelyo ku soo laabtaan. magaalooyinka xuduudda u dhawaa oo dhan waa laga qaxay sababtoo ah nimankan Xisbullah maalin walba nagtay ku hayaan iyagu meel kale calaamadeyntii meeshii xuduudii loo calaamaday wixii magaalo ku yaalay dadkii waa kala carareen meeshaas waa lagu kala tagay. markaas wuxuu ku leeyahay dadka halkan ka barakacay ayaan ku soo celinaynaa guryahooda iyagoo nabada. maxay soo noqonayaan ma Xisbullah ya laxaqa meesha laga riixa Xisbullah iyaguna inay awood saaraan oo wax badan u isticmaalaan waa loo diiday. marka sheekadan marka waxa leeyahay heshiis guud oo waxa jira macalinka weyn iyo Iiraan iyo ku saabsan haddii Xisbullah dagaalka toos u gasho Iiraanna way u gashay way macnaha dagaalkii marka uu isla gubanaa gobolka. marka maadaama Xisbullah dagaal ay rabto oo inay caawiso muqaawamada rabto meela loo calaamaday. Israa'iilna waxa leeyahay idinka xuduudaas Xisbullah ida joogto meel ahayn ma aadi kartaan. Lubnaan inteeda kala shaqo kuma leeyihiin intaas magaalo intaas nagti isaga geliyeen. waxaa maqlay sargaal al dil intee lagu dilo xuduudda gantaale soo riday oo magaalo Heblaal lagu kala cararay oo Israa'iil ay oo Xisbullah duqaysay intee ku taala xuduudda. waxaas intaas marka macalinka weyn ee Iiraan iyo wixii la isku afkartaa lagu leeyahay dadka khibrada waxay leeyihiin inta ma la dhaaf karo laakiin intii ayaa lagu kala tagay macnaha dadkii waa qaxeen. marka odaga si uu marka bulshada reer Israa'iil u qaldo wuxuu leeyahay aniga nin dagaal ah wadankiina inaa xoreeyaan rabaa dadkan meelaha ka qeylqeylnaa mudaharaadka hadda waxa iska togodhayaan ma rabaan inay idin xoreeyaan camal wuxuu sameeynaa marka dhoolatus ayuu u tagay halka ayaa la leeyahay. waayahay marka qodobkaas isaguna halkaas kaga gudbaynaa. sheeko cajiib ah noo soo socota barnaamijkeena labaad maanta aan ku soo qaadanayno. saraakiil Mareykan oo khubaro ah ayaa waxay ka shifeen sir markaas ay yiraahdeen fulaynimada ciidanka Israa'iil waa midaan la yaabnay dhehen nolosheena ma arkin dhehen askari saas fulay waa. haddaba sheekooyinka ay ka qoreen ayaan hadda Al Jazeera ka diyaarisay idin soo wada. laakiin marka hore waxaan ku hormarayaa dagaaladii maanta dhacay iyo duqeymihii ay sameysay Israa'iil. horta maanta dagaal culus ah wali socda waa la isduqeynayaa fiidiyoyo kooban ayaa waxaa soo diraya Saraaya al-Qudus iyo al-Qassam iyagoo hoobiyaal iyo wax nagta ka gelinaya. marka kuwaas way yaryar yihiin oo linkiga ma idiin soo dhigo. aniga waxaan rabaa ziyaaro fiican inaa aadaan markaa wax ziyaaranaysaan. waayahay haddaan ku hormarno Jabaaliya wararkii ugu waaweynaa waxay leeyihiin dagaal culusa socda duqeymo culus ay ku hayaan Jabaaliya si xun ay u duqeynayaan marka weerar culusna way ku hayaan. marka reer Jabaaliya difaac culus ay ku jiraan. wariyaha telefishinka Al Jazeera Anas Sharif ayaa wuxuu leeyahay dagaalkii bilowday duhurkii ilaa caawa qoraxda ugu dhacdo leeyahay nagta la isku hayaa welina waa la ismari laayahay macnaha
duqaynay sameeyeen wax kastay sameeyeen weli meeshoodii taagan yihiin waa lismari laayahay jabaaliya halkaasay wax ka socdaan dhanka kale haddaan u gudubno rafax sideedaba meesha dagaalka uu ka socdo waa bariga macbar rafax iyo xuduudda masar iyo dhanka soo xigtay ahayd hadda israa'iil waxay duqaynaysaa galbeedka waa cirifka kala waaye ee badda u dhow waa meeshii habeen hore dadka ku laysay maantana waxaa la leeyahay dad kale oo masaakiina oo halkaa degan ayay nagta ka gelisay waa meel aamin ah dagaal ka soconin ayay iska duqaynaysaa haddaba marka aan idin tuso telefishinka aljazeera oo khariidad ka sameeyey meesha maanta ay dhibaatadu ka dhacday haddaba wariyaha wuxuu noo tilmaamayaa sida aa arkaysaan meesha uu dabku ka kacayo waa geeska cirifka waaye meel geesa waaye oo badda u dhow oo iska nabadgelyaa oo dad dagaal aan ka jirin oo xabad aysan ka socon ayay dadkii teendhooyinka deganaa ku laayeen waxay u dhowdahay meeshii habeen hore ay dadka ku laayeen mar kale khariidada wariyaha wuxuu nagu tusinayaa goobaabinuu geliyey aagaas meesha dhibaatadu ay ka dhacday habeen hore ilaa maanta waa eriyadaasay duqaynaysaa marka way ka fog tahay eriyada macbarka rafax sida arkaysaan rafax dhinacaanay soo jirtaa oo macnaha macbar rafax xuduudda masar meeshii dagaaladu ay ka socdeen waa dhinaca bariga halkaasaa marka galbeedkaasaa marka ay duqaynaysaa israa'iil waayahay marka afhayeenka ciidanka israa'iil daniel hagari ayaa isaguna shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi daniel hagari weerarkii habeen hore dhacay in dad rayda ay ku dhintaan waa ka xunnahay sababtoo ah waxaan beegsanaynay dad argagixisaa uu yidhi madaxa argagixisaa marka taas way garabsadeen xataa ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu waxaan arkaya maanta qoraal laga qoray uu leeyahay arrin wanaagsan ma aha dadka rayidka inaynu ku dilnay halkaa marka dadka xuna iska dhigaan laakiin waa ulakac laakiin midda maanta ciidanka waa inkarayaan waxay leeyihiin waxa meesha ka dhacay xasuuqaas annaga shaqo kuma lihin galbeedka mar kale ma duqeyna laakiin aljazeera iyo miidiyihii kale ayaa soo bandhigaya dhibaatada ay halkaa ka geysteen maanta marka dhanka kale dagaalada haddaa usoo noqono bartamaha magaalada rafax ayaa dagaal culus ka socda ayaa la leeyahay saan barnaamijkii hore idinkugu sheegay waxaana la leeyahay ilaa hadda dhowr taangi ayay sheegeen alqasaam inay gubeen iyo weliba baabuur ciidanka qaada marka weli laakiin videogii iyo wixii maysan soo saarin laakiin dagaal culus ayaa bartamaha ka socda ciidankii gudaha galay maanta dib ayay galabta u gurteena la yidhi masaajidka alcawda ayay tageen oo bartamaha ah laakiin hadda dhowr kilomitir ayay dib uga soo baxeen meeshii ay saaka galeen waa idiin sheegay ani waxaa idinku yidhi in la tago waa caadi laakiin in la adeegto way daran tahay waa adag tahay nimankan madaxay kaa jibinayaan niman sahlan ma ah marka halkaas iyaduna wixii kasoo kordha barnaamijkayga saddexaad haddii alla idmo oo warar soo kordhaan ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa saacada kadib ayaan soo gelin doonaa qaybta ugu dambeysa oo xiisaha leh marka ayaan usoo gudbaynaa aljazeera waxay leedahay waxaa la yaab noqotay in la ogaaday ciidamada israa'iil nooc kasta ay yihiin in ilaahay uu baqdin iyo cabsi iyo fulaynimo qalbiga ka geliyay waa cajiib sababtu maxay tahay askarigii qoriga ridaaya waa ogey inuu taangi inta soo qaato saaxiibadiis ku dhuftay nagta ka geliya waa ogeen haye hadda marka maxaa lasoo riboor garaynaya waxaa la leeyahay diyaaradaha musayaraadka la yidhaahdo ee daroonka ah ee ay maalin iyo habeen ay dirto israa'iil waxay ka kooban yihiin aa la leeyahay horta sida aljazeera ay sheegayso sawirka a ka arkaysaan waa 26 nooc waaye diyaaradaha noocyada ay isticmaasho israa'iil waa 26 nooc ayay isticmaashaa oo maaragtay israa'iil ay haysato ay dagaalka u isticmaasho waayahay marka 26 kaas nooc kulligood inta badan waxay u isticmaashaa dagaalka ayay u isticmaashaa oo ka socda gaza oo ay kula dagaalayso kooxaha falastiiniyiinta waxaa la yaab noqotay marka diyaaradaha ay diraan 40% iyagaa soo rida diyaaradii asaga uu hadda diray oo hoggaankeedii mid kaloo yahuudiya hayo ayaa soo jiireynaysa markaasuu kii gantaalka lidka diyaaradaha hayay markuu arko wuxuu leeyahay waa timid nag iyadoo ku dhufaraa cabsi diyaarad wuxuu leeyahay ay soo direen waaye xisbullah
kuwo kale ay soo direen waayo sheekadanuna waxay bilaabataa laleeyahay markii ay la soo baxeen dhowaan nimankan laleeyahay alqasaam diyaarado daroona oo alyaasiinka cirka kasoo ridaa sida roobka oo gantaalaha cirka uga keenay markaasay iyagii dhan khalkhaleen marka waxaa leeyahay 40% diyaaradahooda daroonka ah iyagaa iska soo rida haddaba warbixinta aljazeera ay ka qortay haddaan idinla wadaago waxay leedahay aljazeera mas-uul sare oo ka tirsan ciidamada badda maraykanka ayaa magaciisana waxaa la yidhahdaa Michael Brodon ayaa wuxuu sheegay in maaragtay caasimada Washington uu ka sheegay meel looga hadlayay arrintan in 40% diyaaradaha daroonka ah ee Israa'iil ay leedahay ay Israa'iiliyiintu iyagu soo ridaan waxaana ay ku soo ridaan xabad ama gantaal oo nin kale oo Israa'iiliya oo saaxiibkiisa uu ku riday diyaaradii markaasay diyaaradihii iyaga iska baabi'inayaan waxaan la yaabuu leeyahay cabsida iyo walwalka halkaa ka jira diyaaradii hadda ay rideen ayay haddana soo ridayaan halkaa marka dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin waxaa ka muuqata Maraykan iyo Israa'iil inay isku dhex jiraan Maraykanku koru wuxuu leeyahay aniga kuma jiro maahane waxa gantaalaha ridaa waxa la socda Israa'iil kaligeed ma Maraykanka askartuusan ku badnayn maahane nimanka khubarada nimanka taagtiga sameeyana nimanka marka ninkan waa sarkaal sare ciidanka badda ah marka wuxuu leeyahay nimanka waa la soo yaabuu leeyahay macnaheedu waa la joogay waay markay nagta ka gelinayaan waxaan ma fahamteen marka waxaa la yaab leh wuxuu yiri cabsida nimanka ay qabaan waa yaab daroonkii hadda uu rido xabad ku dhufanaa uu soo ridaa waa ka shakiyuulay hadda marka ayagu waxay moodaan wax iska normal ah laakiin wax rabbaani ah meesha ka socda dad masaakiina la layna habeen hore dadkii hilibkooda la solay oo hooyo iyo caruur ahaa ilaahaygi abuurtaa jooga marka ma see qofka waxaas geystay u raaxaysana asagana adduunka ugu noolaana wax dhici kara ma adduun iyo aakhira waa la isku cadaaba meeshaan marka qodobkaas ugu dambeeyay barnaamijkeeni labaad ee caawa haddii alla idmo saacadaha soo socdo barnaamijkii saddexaad ayaa noo soo socda isaguna macluumaadka ayaan ku soo ururin doonaa inta aanu kala maqannahay wixii warara ee soo kordha فكري أركتي حتى قبت إنه قصة قرقيبة كومنتس كي يفريمها برامج كان هاي لوبين إن لايك جري سوشيال جري صادع صوتها سبسكرايب صار يوتيوب كفيسبوك أنا فولو جري أنت على المركلة كل ما ينهض دي الله يدموه نمتقلي